toddoba sababood oo macaaneeya batteriga mobilkaaga. Ma xanaaqda marka mobilku ka dama iyadoo ay meel fiican ku marayso. Batterigu ma ka dhaca, codka aad ugu nacabtahay dhagahaaga ma ku soo dhaca. Waxaan kula wadaagi doonaa toddoba shay oo suuro geliya in batteriga mobilkaagu dhinto ama macaanaado. Balse haddii aad nagu cusub tahay, subscribe dheh channelka lana wadaag asxaabtaada. Number 1. Charging your phone overnight. Ha kaga seexan mobilkaaga isagoo chargerku ku jiro. Waa khalad weyn inaad kaga seexato mobilka isagoo chargerku ku jiro. Kadib marka uu gaadho 100% haddii laga saari waayo chargerka, the battery drains. Waxayna taasi ku sababi kartaa in cimriga batterigu gaabto, waayo waxa dhalaalaya ama gubanaya lithium ion-ka uu ka samaysan yahay batterigu. Mararka qaarkood waxay sababtaa inuu mobilku qarxo. Number 2. You can only charge when you have a low battery. Kaliya geli dabka marka uu batterigu dhaco. Waxa caado inoo ah inaynu mar kasta la tiigsano xariga dabka marka aynu guriga joogno, balse dhaqankaas waa mid khatar ku ah caafimaadka batteriga, okay? Ka hor intaanu dhiman batterigu waxa loogu talagalay in la dabeeyo 300 oo jeer ama 400 oo jeer, mobilada qaarkood ilaa 500 oo jeer. Waa tiro cayiman oo loo asteeyay. Kadib batterigu waa uu macaanaanaya marka uu gaadho intii jeer ee loogu talagalay in la dabeeyo. Haddaad mar kasta kula cararto waxa hore u gaadhay limidkii loogu talagalay. Soo kaliya geli dabka marka uu batterigu dhaco. Number 3. You shouldn't keep your charger plugged on the wall. Ha isticmaalin fiishta ku samaysan ama ku dhajisan gidaarka qolka, waayo waxay si toos ah ugu xidhan tahay mishiinka mana laha transformers iyo diode-ka controller. Saadaraadid, dabka loo yaqaano AC current ee sida tooska uga yimaada mishiinku waxa uu dhaawici karaa batteriga ama guud ahaanba mobilka. Isticmaal extended cableska casriga ah kaliya xaddiga uga habboonaya siiyaan batteriga. Number 4. It is super dangerous to use your phone while it's charging. Ha isticmaalin mobilka waqtiga uu chargerka ku jiro ama uu dabaysmayo. Waa arrin muhiim ah inaynu markaa ku baraarugsanaano. Marka laga yimaado inay dhaawacdo batteriga, waxay halis gelin kartaa noloshaada. Electric shock ayaa ku qabsan kara, taasoo ku horseedi karta dhaawac halis ah ama dhimashaba. Number 5. Turning off while it's charging. Demi mobilka waqtiga uu dabka ku jiro waa mid ka mid ah waxyaabaha ku dhiya cimriga batteriga. Number 6. Don't use cheap chargers. Ha isticmaalin chargerska ama xadhkaha raqiiska ah, waayo ma lahan awood ay ku maamulaan dabka dhex maraya. Waxay siiyaan voltage ka badan kii loogu talagalay, taas oo keenta inuu geeriyoodo batterigu. So don't use cheap chargers. Number 7. Screen brightness is set too high. Kullama uu dalacan yahay screen brightness-ka, waxa hubaal ah inuu dab badan cunayo. Life wallpaper-ska iyo screen brightness-ku waxay dhaxal siiyaan batteriga inuu walfa oo dab badan cuno. Markasta oo batterigu dabka aad u cunana waa calaamad dhimashadiisa ka markhaatiya.